daaxahan baqay sidaan dhuufahan ahayo dhiigahay qaranka dhowrsanaye daara harsan asagay dhinac galayaan ku dherersasaysow maa soo dhicine leegada waxaa la aasaasay 43dii anugu waxaan ku soo biiray anoo dhallinyara 45tii 45kii aan ku soo biiray waxaa xafiis noo ahayd ama noo ahayd fadhi guriga hadda aan weli dhadhisano meesha isku raran gadaasheeda ku yaalla halkaasaan joogi jiray meeshaasaa leegada xarunteedii ahayd leegadii waxay soo martaa dhibo badan oo markii leegada la aasaasay waxaa soo baxay xisbiyo badan oo mucaarada xisbiyahaasoo ay ka mid ahayd digiliya marifle oo ay ka mid ahayd liberaale oo ay ka mid ahayd SNDU ay ka mid ahayd qolaa la dhihi jiray afrikaan adigu waa badnaayeen marka leegada unbaa ahayd raadinaysay xornimo oo u dagaalamaysay in waddanku xoroobo dhallinyaradii isku duubneedaan anigu ka mid ahaa oo 13 waana isla shaqay jirnay waxaan soo marnay dhibo badan sida dagaalka xaawataaka lagu dilay dagaalka dhagax tuur anigu waxaan marayay dhagax tuur maalinka dhagax la tuurayay waxaan marayay derbiga ku yaalla maxay ahayd derbiga maraya maxay ahayd meesha la dhihi Jamaal Cabdinaasir derbigiisa aan maraya meeshaas xabado iyo ka dhacayeen stationka jardiina meesha la yiraahdo hadda madaxtooyada meesha ku taala ayaa xabada laga ridaayay ilaa maalinka dhagax tuur halkaasaan anigu ka baxay waan dheer markaan sii marayay oo aan marayo ex baarlamaan agtiisa ayaa xabado injirka ahaayo kuwa dabka ahaayo dadka lagu tuuray lagu soo tuuro meeshaan ku soocay in yar markaan joogaan ka kacay maalintaa waxaa lagu dilay nin la yiraahdo colow la yiraahaa lagu dilay waxaa lagu dhaawacay xaaji cabdulla qaawane nin la yiraahdo waa lagu dhaawacay adigu waxyaalo saas iyo maalintii xaawataa kala dilay intaba waan joogay marka leegadii wax badan ay soo martoo dhib badanay leegada soo martay saas ayaan anigu ogahay waa tii calankii markii la saaray 54 markii calanka Soomaali la aasaasoo la saaray markaas anigu shaqaan lahaa waxaan jiray jamaa xamar ma joogin waxaan ku soo noqday xamar 3-4 bilood ka bacdi leegada halkaasay ka socotay ilaa asaaska meeshaan waxaa xukumi jiray horta haddaad ingiriiska iga warsanaysiin ingiriiska xamar wuxuu ku siyaadiyey aba yaraatee ma jirin ingiriiska xamar wax alla wixii ingiriiska xamar wuxuu ka qaatay wax alla aan ismaqalna hadda ingiriiska xamar wuxuu ka qaatay wax alla wixii biro ahay sidii birihii raylka oo tariiqa ku socon jira iyo waxaasoo ka qaatay wax uu ku siyaadsan jireen xamar ma garateen anigu marka dhallinyaradaasaan ka mid ahaa waxaan ka mid ahay ragga haddii ilaahay maaho ahay dhallinyarada ugu horeysa waxaa jiray niman badan oo heesaaya iyo maaragtay oo sida qaasim helowle ninka la dhihi jiray iyo haddii ilaahay niman badan oo heesaaya ahaa jiri jiray oo rag iyo haweenba leh annagu halkaasaan ka soconnay leegada halkaas ilaa ay soo gaartay xornimada 1 luulyo ay soo gaartay dhibo badanay leegada soo martay waxaa jiray asaaska gabdho badan oo xataa maaragtay loo xirxiray oo qaarkood ku umileen xabsiga ku umileen sida xaliimo gudane iyo islaan la dhihi jira cawrala koryeeri iyo haddii ilaahay maaho gabdho badan oo Soomaaliya jira iyo dhalinyaro badan oo isaysato rag iyo haweenba lahaan ahayn dadkuna isma nacbayn oo walaalo ahay markaas qofka leegada guri kasta haddiina la eryayo ingiriiska iyo waxayna eryayaan guri kasta guriga Soomaaliya leedahay albaabka ay leedahay geli jirnay ingiriisku guriga ma geli jirin waa ka noqon jiray horta dhibabkaas badanaa la soo maray dagaalkii sidoo u socday kii noolaatay waa kii la gaaray waa tii Talyaani lagu dilay maaqaan 40 iyo waxay ahaayeen 49 maaqaan lagu dilay dagaalkaas asaguna jiray waxyaalo badan ay soo martay adiga waxaa jiray mar xataa maaragtay aadan cabdulla allah yarxamo
la geeyey meeshaan sugunta liida oo uu yidhi oo la yidhi aadan cabdulle ay u bixiyeen shamcuun wuxuu ahaa nin maxay ahayd suuriya maamuli jiray oo boqor iyo wuxuu ahaa maaqaane oo si nin khatar ah oo aadan cabdulle marka waxay yidhaheen war shamcuun naga daaya shigshigow iyo shamcuun ay u bixiyaan waxaa u bixinaya nimanka la dhihi jiray kuwa la dhihi jiray mucaaradka ah daldacaynkaas u bixiyey dahahan baqay sidan dhuufahan ahayo dhiigahay qaraanka dhow hursanaye daara hartan asagay dhinac galayaan ku dherersasaysow maa soo dhicine